in la xiro barnaamijkii habeenkii ka bixi jiray laanta Soomaaliga ee BBC-da ee yiraahdo caawa iyo caalamka waxa weeye marka ugu horeysa shakhsiyan mid aniga ay taabanaysa sababtoo ah barnaamijkaas waxa uu kamid ahaa barnaamijyada aan aad ku jeclahay marka taa laga gudbo barnaamijkan caawa iyo caalamka waa barnaamij guuna oo muddo fara badan ay ku tixnaayeen dhageystayaasha Soomaaliyeed xilliyadii colaadaha jireen 30 sano la soo dhaafay dadka maadaama ay maalintii shaqo ku maqan yihiin qaarkood oo ay raadiyaha dhageysan habeenkii raadiyaha ayay weheshan jireen oo macluumaadkii maanta dhaafay adduunka ka jira iyo arrimaha Soomaalida ka jira ayay kala socon jireen laakiin xilliyadan la joogo waxaa soo batay baraha bulshada oo fariimo kala duwan iyo macluumaad kala duwan lagu gudbiyo waxaa sidoo kale soo kordhay barnaamijka caawa iyo caalamka ee telefishinka laanta Soomaaliga inay barnaamijkan joojiso waxyaabo badan ayaa kalifaya waxaa kalifaya tartanka jira ee xagga warbaahinta idaacadaha waaweyn sida BBC oo kale waxaa qasab ku noqotay in ay siday u shaqeyn jireen ay wax ka bedelaan si ay dhageystayaasha xiriir toos ah u la yeeshaan waxaa meesha ka baxay idaacadihii la oran jiray mowjadaha gaagaaban dadku hadda waxay rabaan in dhageystaan mowjadaha FM-ka loo yaqaano ee aanan wax maqalka wax u dhimaya lahayn ee codkooda fasiixaya taa marka laga gudbo hadda haddii barnaamijkaas la joojiyo BBC-da waxa ay ku bedelaysaa oo xoojinaysaa oo tartan xoog leh oo ka jira suxufiyiinta madaxa bannaan ee keligood inta soo gala baraha bulshada ee wararka soo gudbiya ayaa waxaa la rabaa macluumaadkii BBC-da in ay waqtiga inta soo koobto in ay ayadana tartankaas ka qayb gasho laakiin dad badan ayaa tabi doona barnaamijka oo aan aniga ka mid ahay fiidkii waxa uu ka mid ahaa barnaamijyada aan dhageysto intaan hadda magaalada Muqdisho joogay waxaa kaloo xusid mudan in qaabkii ay idaacaddu u shaqeyn jirtay isbedel inuu ku socdo xataa telefishinkiina nus saac gudihiis macluumaadka ku gudbisaan waa ka badan yahay kan raadiyaha raadiyaha waxa uu inta badan gudbiyaa waxa markaa taagan telefishinka laakiin muuqaal ayuu mar walba helaa hadda muuqaalkii iyo in si toos ah baraha bulshada loo soo galo waxay noqotay wax joogto ah BBC-dan waxay rabtaa inay xoog saarto sidii tartankaas ugu guuleysan lahayd iyo dhageystayaal hor leh dadkii dhageysan jiray caawa ee caalamka intooda badan waa gaboobeen dhalinyarada way dhib badan tahay sidii looga dhaadhicin lahaa in raadi la dhageysto marka waa inaad ka raadisaa dhalinyarada meesha ay ku sugan yihiin